asal ahaan magaca Muqdisho xaguu ka yimid. Muqdisho waxaa qarnigii 6aad ee Hijriga xukumi jiray Farisiyiinta. Waxaa la sheegaa in magacaas asal ahaan uu ka yimid kelimada eri Farisi ah maqcad shaah oo loola jeedo kursiga boqorka ama micnaha kale ee meesha ku jira meesha uu boqorku fadhiisto ama xarun ka dhigto. taariikhyahanada ayaa sheegay in dhamaadkii qarnigii 15aad mar Boortaqiisku ay qabsadeen xeebaha bariga Afrika ayay ugu yeereen magaca magaaladan Muqdisho oo dabaq ahaan Carabiga isshaabahan maadaama xarafka xa afafka Boortaqiiska iyo Isbaanishka uu ku yahay xagga dhawaqa sha. taariikhyahanada ayaa magaca asalka ah ee maqcad shaah soo dhiraandhiriya. magaalada Muqdisho ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu fac weyn Afrika, waxayna leedahay xaafado fara badan laakiin taariikhda aasaaskooda ay kala dambeeyeen. xaafadaha Muqdisho ugu horeeyay ugana da'weyn waxaa ka mid ah Xamarweyne, Cabdilcasiis, Shangaani oo iminka degmooyin ah. sidoo kale xaafadaha Muqdisho ayaa ka dambeeyay kuwan. magacyada kale ee magaalada Muqdisho leedahay waxaa ka mid ah Xamar iyo Banaadir.